بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الذي فضل الأنبياء على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله ثم أما بعد فيا أيها المباركون والمباركات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد التحية ولا لها شرفت له رقية ضمر أحبابت عشاق رسول الله انت نبي جاهل عليه الصلاة والسلام ما أنت وكلا أو أحد أم بعاو وكلا سنين waxaa inooga barateen in aan wada wadaagno ammaantii nabigeena calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan kitaabkii alqasiidatu alcayniya qasiidada cayniyada ah ee ceenka ku dhammaanaysay oo iska lahaay sayidunaa azaylaci oo haddana takhmiis ka dhigay sheekh qaasim albaraawi raxmatullaahi calayhima marka insha allahu tacaala saan ogsoonahay maanta wuxuu noo joogaa darsigeynii lixaad waxaan noo dhinaa doon wax iska yar waxaan rabnaa wax 10 darsi ka yar in aan anagoo tartiib waliba aan ka waalin cashar ku raaxaysanayno in aan ku soo gabagabayno si aan howlo kale u qabanno iyo waxyaabaha kale marka muhiimka ah ahbaabta caashiqiinta codsigooda oo u batado ilaahay raad cashirka marka halkaas geelina waxba yaana war idinku daareen waxaan qabanayno oo hawsheeni hore xadeeni hore aan qabanna amal wuxuu leeyahay sayidka weyn marka فمن مثلنا والخاتم الرسل فخرنا محمد لما جاءنا زاد أجرنا وبشرى لنا بالمصطفى زال سحرنا وميلاده عيد لنا وهو ذخرنا يجدد شوق الواله المتضلع وحكا دريمي هالكاس لالشادي أيو وحيار كتابنا شيخا marka baraawiga ku hormaray saddexdiisa misraac wuxuu leeyahay faman mithluna anaka yaana lamida wal hal al khatim rusul rususha midka khatimay iyo al khatam rusul rususha midka lagu khatimay kiil raal ikra khatam iyo khatim isku mid waay rususha midka khatimay fakhruna anaka faankeen uu yahay oo aan leenahay waa nabigeen nabiyullaahi maxamed xuur busayr burdihi لما دعا الله داعينا لضاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم marka saas darteed marka waxaan helnay nuur sharaf gooni ah wuxuu leeyahay marka faman mithluna anaka yaana lamida wal hal al khatim ar-rusul rususha ilaahi midkii khatimay fakhruna anaka faankeen uu yahay yani nabigeena ku faanina wada muhammadun uu yahay uu yiri marka anaka nabiyullaahi maxamed waa uu yiri markaas muhammadun da mubtadiisa darabtee nabiyullaahi maxamedna wuxuu yiri lamaa goortii jaa-ana anaka oo noo yimid zaada waxaa ziyaado dhahay ajruna anaka thawaabkeen nabiyullahi jahiliya lagu jiray rafaad marka wuxuu yiri khayr nafaxaad aan helno dha nabiga markuu noo yimid wa bushra lana anaka waxaana loogu bishaariyey bil mustafa nabiga la doortay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh zaala nabigana wuxuu zuuliyey zaala waxaa zuulay leedahay markaas sixruna anaka fasaadkeena zuulay uu yiri haday gaalnimo ahaa lahayd iyo jahli waagaas lagu jiray iyo gaalnimada lagu jiray waxyaabahaas oo sheekh ka keenayona markaas wuxuu leeyahay sixruna yani sixirku waa xaraan inuu xaraan yahay sheeg nabiga sheeg cali sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay sharcu huwa ma shar'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani habibi marka nabigu wuxuu ka digay oo dhanba wax la zuuliyo kala waay qofkii sameeyay dulmi uu sameeyay marka wuxuu dhahay zaala waxaa zuulay oo dhahay sixruna anaka sixirkeenana waa zuulay wiri markii loo bishaariyay oo bushra lana waxaan loogu bishaariyay bil mustafa nabiga la doortay calayhi salaatu wasalaam zaala waxaa zuulay sixruna anaka fasaadkeena dirshadu ka baxo dhahay wa miilaadu nabiga dhalashadiisa wuxuu dhahay ciidun lana anaka dabaaldeg iyo feestay noo tahay dhahay wahwa dhalashadaasuna dhukruna anaka waa keedkeenu dhahay waxaan rabnaa markaan dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan helno yani xafladda loo sameynayo waxa la sadaqaysanayo quraanka la akhrinayo salga la akhrinayo waxaasna waa keed cinda Allah noo jiro marka
yaa dhahayo zaylaci raxmatullahi caleyh imaamkii weynay wa miilaaduhu nabiga dhalashadiisa ciidun lana ana kafaastay dabaaldegay noo toodha ciidee noo toodha maalinkaas wahwa wuxuu yihi marka dhalashada nebigane waa dukrunaa anaka keedkeena waayuu dhah yujadidu marka waxay cusboonaysiina dhalashada nebigane shawqal waalihi midkii wuxuu yihi jaceelka ou maray jaceelka qofkuu baabi'iyey qofkaas wuxuu yihi oo waaliha ah yacni waa qof axad jaceelka inta ka batay wareeraa waalihi loo isticmaalaa shawqal waalihi jaceelka kii la wareeray wuxuu ku cusboonaysiina oo cusboonaysiina u dhahay almutadalici meelaha fiirfiirinaya nabiga dartiisa alayh salatu wasalaam meelahu fiirfiirina wuxuu is leeyahay beyow nabiga maarki doontaa wuxuu yihi wa miilaaduhu nabiga dhalashadiisa ciidun lana anaka feestay noo tahay wahuwa dhalashadaasune dukrunaa waa anaka keedkeena ilahay agtiis wax noo yaalla waay ilah nagama hoojiyo yiri waayahay yujadidu wuxuu cusboonaysiinah u dhahay shawqal waalihi kii wareersanaay jaceelkiisa almutadalici meelaha fiirfiirinaya wa aayaatuhu qad bayanathaa shariicatun falaa tanqadii kalbaxri fayaa rafiicatun wasimaau khayri linnabiyi dabiicatun garaa'ibuhu fi lmucjizaati badiicatun waxanaa ilayhi ljidcu cinda tasaduci marka qeyb kale ee nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkiisi ah ayuu sayidii azaylici wax ka sheegay kadibna waa takhmiisiya le baraawi markaasuu yihi markuu ka hadlayo wa aayaatuhu nebiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aayadihiisa qad bayanathaa waxaa noo caddaysay shariicatun shareecada noo caddayso dheh oo shareecada nabiyullahi maxamed aan dhahna dee carabkiisa lagu soo dejiyey shareecadaas waxay noo caddayso dha nabiga aayaadkiisa wa aayaatuhu nabiga mucjizaadkiisa iyo aayadihiisa qad bayanathaa waxaa noo caddaysay aayadahaas shariicatun shareecada noo caddaysay u dheh falaa tanqadii mana go-eyso aayadahaasi inay go-aan lagama yaabo dheh maxaa yeelay hadda qur-aanka ilahi la akriyaa nabigoona kusoo degan alayhi salatu wasalaam nebiga ka sheekeyntiisa siiradiisa nabiga ma zuuleyso calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yihi falaa tanqadii maba go-eyso dhahay aayadahaasi ma go-ayaan kalbaxri waa sida badoo kale qofku wuxuu yaqaana wax loogu tashbiihiyaa maxaa yeeley badda biyiheeda amay dhamaahan ay gurayaan bawtarti raxmaan ku guri karaan laakiin waa biyo fara badan oo ilaahi subxana wa tacaala iraadiyey in khalqiga ilaahay waxyaabaha lala yaab ay ka mid noqdaan marka wuxuu yihi kalbaxri badoo kale waayo dhah fayi aayadahaasuna rafiicatun waa kuwa sarsareeyo dhah oo wax caadiya maahan u dhah oo dadka qof kasta ay fahmi karto oo caasho ogaala maahan u dhah wasimaau waay haddii meeshaas ha ay kitaabaha qaar ay qoraan waxaa loo bedelaa hamze inay tahay wasimaau khayrin kheyrka calaamadihiisane dabeecatun dabeecayay linabiy nebigu u tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasaa u macnahaynaa wasimaau khayrin kheyrka calaamadiisa dabeecatun dabeecayay linabiyi nebigu u tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaas markuu dhaha imaamkii baraawi zaylici ayir marka qaraa'ibuhu nebiga mucjizaadkiisa badiicatun waa mid xeel dheer fi lmucjizaati mucjizaadka dhexdiisa waa mid ku xeel dheer qaraa'ibuhu nebiga layaabyaashiisa waxyaabaha adeega oo khawaaribta wuxuu ka wadaa yani waxyaabaha khawaariqulcaadaadka ah amrun khaariqun lilcaada wax haddii caadiyin waa caadi haddaysan caadi ahayna waa gariib waa karaamo waa mucjizo waa wax khawaariqulcaadaada wuxuu dhaha marka qaraa'ibuhu nebiga layaabkiisu badiicatun waa mid xeel dheer fi lmucjizaati mucjizaadka o dhan adunka hadii la isku keeno ambiyada mucjizaad la siiyey haddii la isku keeni lahay o dhan nebiga mucjizaadka la siiyey wuxuu yihi badiic waa yiri waa mid xeel dheer oo wax la gaari kara aan ahayn hal xabisu kasoo qaata fiiri oo soo hormarisay waxana waxaa ololay aljidcu dogobkii waa geed timireed dogob ahay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam mimbar u ahaa jira khudbada jamca ku akri jira inta u koro gabareer ansaaraha u timid markaas waxay tiri wiilkeyga waa nin farsamo yaqaana oo najaaro geedaha sida loo qoro yaqaano nabiyullahi maxamedow haddaan kuusoo sameyno mimbar ka waran nebigu wuxuu dhahay haddii aad rabto samayn kartaa salawaatu rabbi aad u naxariis badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qofka waxay rabta inuu ku celiso nebiga ma rabin mimbar qurux badan oo wiilka soo qoro nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam mimbarka nebiga markuu fuulay geetimireedkii nebiga intuu ku istaago khudbada ku akri jiray yaa celinaya marka oo inuu jabsaday gaal iyo bidci qalalay geedkaasa ka kheyr badan ilaahuna qalajin waa qeylsha geedka
ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka maslaxa intuu soo degtay nabiga uu ku dhago wixii misaajid ku jiro dhan qeylada waa maqleen geedka soo haray oo kala carar lahaynba laakiin nabiga dhex joogo calayhi salaatu wasalaam geed qeylaha da aragto nabiga habuu sii wuu salaaxay wuxuu ku raali geliyey wuxuu yiri ka warnoo haddii aan ilaahay kuu weydiiyo inaan naqato geed kamida geedaha jannada lagu talaalo oo haddana aska sabarto hayuu yiri saasoo ku sabraa u dhah haddii jannada lagu talaalayo waa geed timireed aan nabiga rabo oo jannada rabo nabiga wuxuu usoo jeedsoo diidi karin maahane nabi maxamed jannada waa layga darin xataa dhiilaadaan ku rabaa nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam meeshaan inta loo qodo ha lagu duugo geedkan masaajidka nabigu hoostu hadda ku duugan yahay geed timireedka qalla waxaana waxaa ololay aljidcu dawabkii ayaa ololay ilaahi ila nabi u ololay nabigu u qiilshaa uu leeyahay ololka saas waay cinda tasaduci dildilaaca agtiisa geedkaas hadduu nabiga kasoo gaari lahayn waaba qarxi lahayba waa dilaaci lahay laga wadaa cinda tasaduci dildilaaca agtiisa nabiga kasoo gaarsiiyey waa calayhi salatu wasalaam nabigeena waxa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin geedkaas nabiga darsi u yahay xataa nabiga u naxariisahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahu shafaacadiisana geli وأحيا الإله والديه علا له فقد آمنا حقا به كم أنا له كإحياء غلام للعجوز أطاله ذكاء له ردت بعير شكا له وخرت تماثيل العداب تروعي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وأحيا الإله الله سبحانه وتعالى ونولي والديه نبي لبض الشيء عليه الصلاة والسلام علا سرين درتد له نبي الله سر مرينايو نبي شرف لا شرفايا درتد أي الله نولي فقد حقيقة آمنا وي آمنين به نبي حقا صدبه كم أناله نبي إمسال سي نبي إمسال سي وايه وات إمام الشافعي ليه ما أعطى الله نبيا إلا وأعطى نبينا محمدا منه أكثر نبي الله محمد أيا لسيي وحا أنبياء لسي وحا كسي بضي نبينا لمصين وحا نبي محمد لسين عليه الصلاة والسلام مركز الشيخ نحوله كم أنا له نبي إمسا لسي ولا قارسي كأحيا غلام سيدا نولانت عنق عمل وللعجوزي عنقاس وللعجوزي أسقناد إسلام وييلو عند اللهين نبي الرميسي نبي سوء أدي ayaa hal cunuga haystaa ka dhintay markaas ilaahay tuugmo u gashay nabiga fadligiisa inuu cunugaas oo ilaahay ugu soo nooleeyay ilaahay markuu u tuugay cunugaas ilaahay waa u soo nooleeyay waxyaabo kamida mucjizaadka nabiga waxa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam mar iyo marar kaliya uu sameeyay marka cunugaas ilaahay waa u soo nooleeyay adaalahu adana ilaahay umrigiisa waa dheereeyay oo hooyadiisna waa duugiyay nabiga calayhi salaam kala ofsan cunug waa noolay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu leeyahay marka imaamu Zaylaci dhukaa'un qurax ayaa ruddad lahu nabiga dartiis loo celiyay qoraxdii u dhacayso nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga dartiis loo celiyay marar badan ay dhacday marna sayidina cali nabiga casar soo dukaday calayhi salaatu wasalaam sayidina cali oo meel fadhiyo oo ajirkiisa inta barkado hurday sayidina cali soo isku dhaay nabiga ku soo kacay dukanay nabiga ku soo kacay dukanay nabiga ku soo kacay dukanay qoraxdii ay leeyac gashay qoraxdii oo sii dhacayso oo nabigu wuxuu u soo kacay maghrib ahaan waa sii dheertaa qoraxdii maghrib ahaan u soo kacay asuu nabi ilaahay madukan asuu maxaa duko weys asuu inaan ka naxiyaan diiday inaan hurdada ka kiciyaan diiday day si idab u lahaa asxaabu rasuulillah ilaahay oo tuu qoraxdii in la soo celiyo qoraxdoo nool casr camal oo siidina cali dukaday marka siiradu waa badan tahay dalaa'il nubuwa ayaa waxyaabaha qaraa'ibta inta badan wuxuu ku soo tirinaa sayidi imaamul bayhaqi qofka doosan aqoon u lahayn wuxuu leeyahay wax kasto asiga oo sameey karin nabiga ma sameey karo nabi kalena ma sameey karo wilna ma sameey karo may waxaan waxa sameeyna ilaahay subhanahu wa ta'ala way laakiin qof walba qof kale intay ka qiimo badan tahay laga kormari waxa la dukaa'un qurah dukaa waa ism min asmaa'il shams kamida qoraxda waa ku soo qaadanay in badan qasiido badan oo soo tirno cajiib ah sida maartay hamziyada amal waa ku jirta wuxuu yiri marka dukaa'un qurah ayaa ruddad lahu nabiga dartiis loo celiyay بعير رتي أيا شكا له نبي قد عودي عليه الصلاة والسلام وواتو أنت أوي من رتي أو نبي عليه الصلاة والسلام نيكا أنيكا وحول ملكي ذا له باهين ويقول له ركن ويقبضيه ولا يابي
markaasuu nabigu wuxuu dhahay alayhi salatu wasalaam man rabu hada aljamal ratigan yaa iskale wiil reer ansaare wuxuu na iskale ya rasuulallah wuxuu uu ka dacwoona wuxuu sheegaa inaa baahi ku disho sheegaa hawdha ya maxaa kugu dhacay tujiichu baalkan baahi ka cabaadahay baahida maxaa ugu dishay oo haddana rarka uga badinay oo haddana u dhibe inaad dhibaysan waa sheegiye nabiyullahi axmed wuxuu mar dambe sameeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xayawaan iyo dad oo nebi u kala gar qaada xayawaana dacwohay waa rati jamala wuxuu yiri marka baciirun rati ayaa shakaa lahu nebigu dacwooday maxkamad waay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu maxkamad waa qaaday alayhi salaatu wasalaam wakharad way hoobatay oo dhahay tamaathiilul cidaa cadawiyadii sanabyaashoodii ayaa hoobtay oo daatay haye bitarawuci bisababi tarawuci argagax dartiis nabiga calayhi salatu wasalaam ul oo watay ayuu asnaabta marka saas ugu taagay asay daateen mucjizaad ka mid tahay imaamu zaylici ma dhoweyn caadi maahan axad ilaahay aqoon iyo karaamo iskugu daray ahay wakharad way hoobatay waa daadatay tamaathiilul cidaa cadawiyadii sanabyadooda ayaa daatay u dhahay bitarawuci bisababi tarawuci argagax dartiis la daateen u dhahay waaya ducaatun ila araxmaani xaqan qariibuhu calaamaatuhu kam wakam hiya cajiibatun wamasjiduhu irtaja lahu daa gariibatun idaa maa daca alasjaara fahiya mujiibatun wasalaamahu sakru safa bitadaruci asalaatu wasalaamu calayka sayidi ya rasuul allah wuxuu yihi marka ducaatun ila araxmaani xaqan qariibatun macnihiisna waxaan ku sameynaa marka inqilaab waa kala hormari karnaa calaamatuhu wuxuu yihi nabiga mucjizaadkiisa waxaa kamid ah o dhah waxay naqatay ducaatun u yeeritaan ila araxmaani ilaa diini araxmaani oo ugu yeeraayo xaqan si dhaba qariibatun mid dhow oo ilaah u dhoweyneyso oo dadka markay ajiibaan nasri iyo waxay dareemayaan iyo kheyr inay heleen markaas oo hadda waxaa ka dareemaya qofka gaalka hadda doo soo muslimo wuxuu ku leeyahay stress waa idaay dhibaatada waa idaysa maxaa u maleeya qof nabiyullah axmed saankiisa kusoo hanuunay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yihi calaamatuhu nebigu waxaa kamid oo dhaa mucjizaadkiisa ducaatun u yeeritaan ila raxmaani ilaa diin raxmaan dadka inuu ugu yeeraya xaqan si dhaba qariibatun ay tahay mid dhoweyneysa markaas waaya kam badana oo wa kam badana hiya ayada cajiibatu inay yaab leedahay yaa dhahayo sheekh asin baraawi inay yaab leedaha badana o dhahay kam wa kamki badana oo dhahay hiya cajiibatun ayada inay cajiib tahay badana o dhahay waa la yaaban yahay wuxuu yihi markaas wamasjiduhu nabiyullaahi moxamed masjidkiisa ayaa irtaja ruxmay waa lushaba lahu linabiy nabiga daraadiis salawaatu rabbi wasalaamu calayh daa kaas ee lulashada ah qariibatun waxyaaba la waa yiri sheekh asin baraawi wamasjiduhu nabiga masjidkiisa irtaja waa lushay lahu linabiy nabiga daraadiisa u lushay daa kaas lulashada qariibatun wax mucjizaa waa weli oo adeeg ah qofka bini aadanka in la yidhah adig dartaa masaajid u lushay qofka gariib waay wax adag ayadoo ay tahay haddana wax kasta diintaa ka sareysa diintaa ka adag qofka hadduu diinta aamin wax kasta u aamina waaya waa lushay weri idaa maa daca alashjaar maa idaa hadday imaada dambeyso markaas waa zaa-idu idaa maa daca alashjaar markii geedaha uu u yeero nabiga calayhi salaatu wasalaam fahya ayada mujiibatun geedaha waa ajiibahay nabiga alayh الsalatu wasalaam jaaءat lidacwatihi اlasjaaru saajidatan tamshi ilayhi calىa saaqin bilaa qadam kaanamaa sadran lima katabat faracuhaa min badiici اlkhadi fi laqami burdahan kusoo qadan idaa maa daca alashjaar geedaha markuu nabiga u yeero calayhi الsalaatu wasalaam fahya mujiibatun way ajiibaysaa waa imaaneysaa geedaha wasallamahu waxaa salaamay nabiyullahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam nabiga geedaha salaamayay nabiga raashin gacantiisa ku jira iska tusbixsanay nabiga alayh salatu salaam raashinka nabiga saas intuu qaatay raashinkan la cunayo karsamayd waxaa dhahay subxaan allah wasallamahu nabigu waxaa salaamay sakru safa adeegii dhagaxiisii yacni wax ku salaamaa badan nabiga geedaha xataa waa salaameyni laakiin sheekh wuxuu meeshan ugu soo qaatay yacni dhagaxa iyo geedka dhagaxaasi adag dhagax hadduu nabiga salaamo geeda ka jilcan inuu salaamo ka sahlantaa waay wasalamu waxaa salaamay waxaa kaloo dhihi karaa yacni buurtii safaahir dhagaxeedii waa salaameyn
marka adeega dhagaxiisa ayaa salaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam multabisan xaal lagu dheehay bitadarucin khushuuc weliba so u salaamaa si edab loo u salaamaa weliba inuu nabiga salaamaya waa dareemaya nabigu wuxuu dhihi jira markaan yaraay geedihii salaamaya dhagaxyadii salaamaya hadda waa ka aqaanaa mako jaaib intaan ba lasoo dirin ayaga ogaayeen salaamaya jamaadaadkaa la ogeysiiyey maxsaa la ogeysiiyey yacni ilaahi subxaanahu watacaala qadiirka ah xoogeliha dareen ay ku dareemaan axadka inuu yahay afdalu khalqi wa xabiibu lxaqi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dareen algeliha waa dareenka ay inkirayaan dadka uu yihi buusayri qad tunkiru lcaynu daw'a shamsi min ramadin wa yunkiru lfamu dacma almaai min saqami dadka hadday jiran yihin bidca yihiin waxba lama dhadhansii karo waxaan lama dareensii kara indhay wax ku arkaana male cari wax ku dhanshaana male dareenkooda dhamaa dhimanaya marka dareenka geedaha ka ficnaahaya marka oo dareenka dhagaxda ka ficnaahaya markaas ilahay kuwaas wax nooguma darawa dacaa lilwaraa bilgaythi raxman biludfihi bihi fasaqow sabcan wajaa-uu bikhulfihi wahum yashtakuunahu fanaadaa bisarfihi waarwaa bimaa-in min asaabici kafihi juyuushan xumaata diini can dii tabaduci dacaa nebigu waa u tuugay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u tuugay lilwaraa makhluuqa bilgaythi roob u weydiiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam hamsiyadan aan kusoo qaadan roob u weydiiyey asagoo cadaro ku dhigaayo imaam buusiri sidii nabiga calayhi salaam roobka u wacay hal cashiraan gelina umaleha wax yaab loo ka sheegay buusiri wuxuu yihi dacaa nebigaa tuugay ilaahayou tuugay lil waraa makhluuqa u tuugay ilah u ka soo gaaro dadkan nabigaa soo qudbo ku jiraa nin reer baadiya intuu yimid nabiyullahi maxamed oo ilaahay noo tuug waa ba'nay ummaddan waa halaagsantay nebiga gacmuhu kor u taagtay calayhi salatu wasalaam ilaahayou tuugay nebiga intoo mimbar ka saarnaa roob bilowda roobkiia 7 beri joogsa waay ninkii jimcihii dambuu yimid nebigoo mimbar ka saarno khudbo akrihayo roobkii jimcihii horena oo weli socdo 7 beri roob maa soco karo waa lagu baaba' maayo markaasuu nabiyullahi maxamed oo ilaahay noo tuug roobka inuu ilahay naga joojiyo nebiga haddana ilaahay tuugay roobka haddana waa istaagay isla marka intoo mimbarka saarna oo istaagay awel intoo mimbarka saarna roobka yimid dacaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tuugay ilaahay lil waraa makhluuqa u tuugay bilgaythi roob oo ka tuugay ruxman naxariis darteed biludfihi nebiga naxariistiisa darteed oo ugu tuugay fiir nebigu waa dhihi kare kulalkiina ku jira ma dhihina waa u tuugay markay dheheen maarata waa abaarna baabi'isa waaya bihii nebiga sababtiisa fasuquu waa la waraabiyey 7 maalin roobka kale istaagi waaye hal ilbirqsi xataa roob ma istaagin wajaa-uu haddana waa yimideen bikhalfihi 7 beri kadib ay nebigu u yimideen nabiyullah maxaa ka leeday dheheen roobkaana qaadi raba waana baaba-ashay waa ka dharag nebiyo roobkaan ilaah noo tuugo naga istaago walxaal hum ayaka yashtakuunahu ay ka dacwuhayaan ay nebigu u yimideen roobkii shalay ay dheheen nabiyullah maxamed roob hanoo yimaado ninkii reer baadiya haddana waa yimid wuxuu dhaha waa naga caddaay roobkaa naga istaago haddana walxaal hum ayaga yashtakuuna ummadda dhan waa shabihiima roobka waa baaba-ashay markaas waa ka caddahay roobkii loo baahnay haddana qaati bila laga istaagay bini aadamka daciif waay walxaal hum ayaka yashtakuunu ay ka dacween roobkii haddana fanaadaa nebigu wuxuu naadiyey ilaahay ka tuugay bisarfihi in laga sarfiyo roobka laga kor qaado roobka laga leexsho dhah ilaahay roobka leex allahuma xawaalina walaa calina ugu duceey marka sheekhu waa ishaara baraa wuxuu leeyahay bisarfi fanaadaa bisarfihi allahuma xawaalina walaa calina uu nabiga calayhi salatu wasalaam muxuu dhaha marka zaylici wa arwaa waxaa ka dhargay uu yidhi bimaa-in biyo biyahaasoo min asaabici nabiyi wa min asaabici kafi nabiyi nebiga sacabkiisa farihiisa biyo ka yimid waxaa ka dhargay juyuushan jeeshyaal jamaacooyin fara badana ka dhargay juyuushtaasoo xumaata diini diinka kuu ilaalihaya asxaabulfudalaa waay aa ka dhargiinoo dhah maxay ka ilaalihayeen can dii tabaducin bidca sameyn ayay ka ilaalihayeen qof bidcii ma arkayn ba asxaabu rasuulilah bidcanimaday diidanaayen waay xumaata diini kuwa diinka ka ilaaliha uu yihi can dii tabaducin bidca sameyn bidca in la sameeyo bidca wax u saaxiib oo dhan ayay nebiga ka ilaalihayeen iyo diintiisaba saasay u ilaaliyeen uu leeyahay waata sayidii sheekh cabdiraxmaan celi uu leeyahay waqad nabaca almaau min kafihi liarwaa'i asxaabihi lfudalaa baxru mutaqaarib uu ku leeyahay kitaabkiisa almajmuuc alxawi markuu cadirka tarjumayo abyaad oo gooni ugu soo daraa ku jirto maxaa yeele cadirka mucjizaadkii kuma darin sayidii imaam albarzanji laakiin shaacadii markuu tarjumayo uu ku daray maxabada iyo mucjizada uu ka hadla ilaa ninka mualifka waxaa la rabaa inu waxna soo gaabi karo waxna u dheeray karo marka cadirka wuxuu ka arki waayay siirada nebiga
qaybtii mucjizaadkii qaybtii maxabadii waxyaabihii ugu muhiimsanay ka mid yihiin siirada haddii wax laga tegaya xataa ayaga lagama tegi karo marka sheekh cabdi ku daray raxmatullahi caleyh ayadoo gabay ku daray barzanjin wuxuu ka tegay ayadoo nasri ah oon gabay ahayn wuxuu leeyahay marka imaamkii weynaay ee sayidi baraawi fakam abra'a almardaa biraaxaatihi falaa tukadibu wakam akhbara algayba maqfila kaأkhbaarihi اlmahdiyi falaa kaana akfala laqad kalamathu jahran طibat اlfalaa wakhadabahu dabun bifardi takhaduci weli mucjizada ku dhex jiraan fakam imisa ayaa abra'a nebigu uu caafimaadiyey almardaa kuwa jiran ah mariid waxaa lagu jamciyaa mardaa dad jiran mardaa a jamca mariidna waa qof mariid waa nin jiran mariidlah waa gabar jiran labadoodana mardaa lagu jamciyaa wuxuu leey marka mardaa kuwa jiran ayuu biraaxatihi nebiga sacabkiisa ayuu ku caafimaadiyey waaya falaa tukadib ha beeninin ilan bidcada waa beenihayn mogta wuxuu la hadlaa dadka cushaaqda ah oo nebiga rabaan calayhi salaatu wasalaam siiradiis inay fahmaan aaminsan mucjizaadkan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay nicmo la siiyey oo ilaahay bixiyey nebiga asmaa u madax banaanay waa may ilaah yaa siiyey subxaana wa tacaala ilahay qofku wax siiyane xataa weli hadduu ilahay wax ugu deeqo lama xasdo wuxuu yihi marka falaa tukadib ha beenin wakam imisa akhbara algeyba qeyb ou ka hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam ou ka hadlo dhah muqfila xaal oo qarsoonay waxaas wax qeyb oo qarsoonay maxaa yeelay qeybka sidiisa dhammaantiis ilaahay subxana wa tacaala keliyaha og laakiin qeybka qeyb ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku rabo ogeysiiyaa tusaale annaga qeyb oo dhan haddaan ogeyn dadka dhan ma isku mustawa ilahay agtiisa laa ilahay agtiisa loo kala dhow yahay owli ilaha jirto owli maxa laga wadaa weli waxaa laga wadaa qof qariib ilallahi ah waay macnaheeda dhan weli waa dhawaashaba qofuu ilahay dhaweysta wa qofkuu ilaahay dhaweystay hadduu u sheega ka waran berri inuu roob imaha iyadoo kulaal jiro adina aan laguu sheegin ma aha qofkaas marka qeyb oo dhan inuu og yahay laakiin waxaas ilaahay u sheegay inuu ilaahay u sheegay oo si madax bannaan uusan u ogaanin oo asiga roobka keenaynin intaas inaa ogaato bisaa lagaa raba intaas haddaad diidana waa jahli leh intaas haddaad diidana waa caniidnimo leh waxaa ku taraysoo gooniyana ma lahan marka fawdada meeshay ka timid iyo in firqooyin iyo fidno badan ay timaado waa waxaas madax adeega ahay ka timid laakiin culamada islamka waxaa looga bahanya mar kasto in ayagan aysan ka gaabin inay ka digaan maxay laga aamuso waxay lamid tahay in waxay daldalayaan qubxi nijaas in raalli laga naqdo wuxuu leeyahay marka ka akhbaari almahdiyi sida uga khabray oo kale sayiduna mahdi waxaa la yihahdaa moxamed bnu cabdillah nebigu wuxuu yhi alayh salatu wasalaam sayidina mahdi a soo daahira akhiru zamaanka ismu ismi wasmu abiihi wasmu abi o dhan nabig alayh salatu wasalaam muxuu ka wadaa marka mahdi waa naynaase magaciisa waa moxamed bnu cabdillaah wuxuu nabig alayh salatu wasalaam min duriyati xasan abulxusein muxuu ka wadaa nabiga alayh salatu slam aniga duriyaddeeda waa hadduu yihi waa xasan iyo xusein mid kamid a soo sharaafa oo xasan aba xusein oo imaana marka soo ma aaminsan mahadin u imaana ha adiga kuu sheegay nabigaa sheegay alayh salatu wasalaam qeyb ma tahay mase maaha qeyb waay axaadiis saxiixa sheegayan in mahdi imaanayo qofkaas caamada a og qofka dadka ugu jahilsan wuxuu ku leeyahy mahdi a soo daahira akhiru zamaan yaa kuu sheegay nabigaa sheegay alayh salatu wasalaam mitroscob maa lagu ogaaday maa lagu raaji maxaa lagu raaji yaa soo sheegay dayax gacmeed maa soo sheegay yaa soo sheegay nebigaa sheegay alayh salatu slam nebigan ilahi yaa u sheegay subxana wa tacaala wuxuu yihi falaa kaana nebigana ma ahayn calayhi salaatu wasalaam nebiga u haysa calayhi salaatu wasalaam aqfala mid wax halmaamsan ma ahayn nebiga yani wuxuu sida anaka camal aan u xirxiranna nebiga ma ahayn alayhi salatu yani ilahay fahmaa la siiyey ambiyada dhanba waxay ka sinaayeen waxa la yidhaha fadaana fahmad fara badan qof xiran kuma jirno ambiyada ilaahi qofka tiran waa dambaabi maxay ilahay ma wax naaqis soo dira may nabiyullaahi maxamedna afdaluhum asa ugu fadli badan nebigu wuxuu ahay fatiin fahmo badana ah calayhi salatu wasalaam jawaamicu lkelim la siiyey hadalkiisoo kale qof ku dhawaaqi kara nabiga male alayhi salatu wasalaam fasaaxadda ilaahay siiyey warkaas inuu cad yaha umalaynaa muxuu dhaha marka imaamka weynaayo zeylicine laqad kallamathu nebiga waxaa la hadashay calayhi salaatu wasalaam jahratan si qaylo ah oo la maqlaay oo codku dheer yahay
microphone camala waxaa nebiga la hadloo dhahay daybatulfalaa banaankii eeladeedii dabyatulfalaa dabyatulfalaa banaankii eeladeedii ayaa nebiga la hadasha eelaa la hadlayso waan kusoo qaadan hamziyadii in nebiga asoo beer dhex maraya nin carabo eela u xiran tahay ou yidhi maaragtay oo gaalahay eelada ee nebigu dacwootay cadays ay tiri cunuga iga baahan buurtaas iga baahan nabiyullahi maxamed waxaa raba cunugeyga inaan inta soo nuujisto ninkaa inuu iqasho rabaa aan usoo laabto ha iqasho hadduu rabo laakiin cunuga saacaddan aan noolahay uga baahan yahay haddale aan soo dherjisto markaasuu nebiga ninkii la hadlay calayhi salaatu wasalaam asuur saasay leedahay ee fur anaa ka damiinay cunugay soo nuujisay waa imahaysaa asuur ma eeladan oo dhibka arka aan ka maray saan u gaadayay aan inta xariga ka furay soo naqanay asuu nabig wuxuu yidhi haa waa la daayay ayadoo afar qaadlehaysay baxday orodka iyo farxadda ku jiro cunuga markay soo nuujisatana way soo laabatay ninkii carabkaa wuxuu yiri dhibkan arka maanta kaa maray maanta cunug soo nuujistaa soo naqato yiri haa wallahi adoo xayawaana meesha ka rumaysay anaa kaaga dhawooda nabigu waa rumeeya war alayhi salaam ilaa khayr la maagamahno uu rumeeyey saasuu ku rumeeyey wuxuu leeyahay marka wakhaadabahu dabyatul falaadi saas ahayd wuxuu yiri banaankii beer wuxuu ka wadaa banaankii eeladeedii yani meel beer markaas joogtay ayadana banaanka laga helaa beledka imaamaysa mugta eerada wuxuu yiri marka eelana waa la dhahaa deerana waa la dhahaa Soomaali ahaan dabya qof walba luqadda u yaqaan u qaadan laba xayawaan kale ma aha eelo iyo deer hal xayawaan isku yihiin luqadda carabigana waa dabya iyo magacyo badan ay leedahay wakhaadabahu marka nabigu waxaa la hadlay calayhi salaatu wasalaam dabun aw yasaluguliya la hadashay see ula hadasho dhaa marka wuxuu kula hadasho dhahay bifardi takhaduci isqushuucin xeel dheer takhaduc waxaa la dhahaa qofka markuu qushuuca isku qasbo bimacnaa takalluf uu gaaro ilaa inta khashaca waa soo qaadanay qushuuc caadi ahayd laakiin takhadaca waa isqushuucin la isku dhibo marka wuxuu dhahay isqushuucin haddana fardigu galsho wuxuu yidhi oo xeel dheer bifardi takhaducin isqushuucin xeel dheer waa abeesaluguuleed abeesaluguuleed nin soo dishay abeesaluguuleed dhimatay ee kala dhambalan oo ninkii watay nabigu ku yimid calayhi salaatu wasalaam as wuxuu dhahay waxaan rabaa inaa ilaahay rumayso oo aniga rumaysana rasuulullahi ah markaasuu yidhi maxaan kugu aaminaa asuu yidhi maxaa jecesha asuu wuxuu yidhi abeesadan ha sheegtoo dha ina adiga nebi tahay ina adiga carabkaa ku sheegta lama rabo dha asuu waa dhulkaas dhig xujo iyo madax adeeg meel ku gaari wuxuu is dhahay waxaan dhici karin farta ka saar si oo u arko horta inaad tiraa laa ilaaha ila allah maxamud inaysan dhici karin haddii abeesaluguuloodii la soo dilay ay dhimatay dabyada waaba nooleed borta eelada waa nooleed abeesaluguuley dhimatay haddii tir ka waran ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamedan rasuulullah la yaab waa sheekh ya laqad kallamathu jahra tanطibatu lfalaa wakhaadibuhu dabun bifardin takhaducin waayahay imaamka weynaa saasuu yiri waay wakhaadabahu dabun uu leeyahay laqad kallamathu jahratan si codeera waxaa kula hadashay dabyatu lfalaa banaankii eeladeedaa la hadashay wakhaadabahu nebiga haddana waxaa la khidaabay ee la hadlay hadalkii u isticmaala kallamana hadal waa khaadabana hadal waa waxaa la hadlay labun abeesaluguuley meeshaasoo aqoon ka joogay imaamu zaylaci abeesaluguuley ayaa nebiga la hadashay o la khidaabtay bifardi takhaducin wuxuu yihi isqushuucin xeel dheer ay kula hadashay u dheh waadcama alfan min unaasin dabiibunaa bilaxmi canaaqin qul wa asqa xasiibunaa ثلاثة مئة بدر عنز نصيبنا وقد أشبع الجيش الكثير حبيبنا بمد شعير صح ذاك كما وعي waxaa laga yaabaa kitaabada aan kusoo baranay iyo kitaabada hadda casriga in shaqada waxyaaba ka kala gedisan yihiin waxaan u fiirinaa markaasta miisaanka carabiyada marka kan ku baranay iyo kan kii carabiyada markaas hadday la wada saxan yihiin iyo midka carabiga ku dhow markaasaan u bedelaynaa kitaabka waxaa moodaa meelaha qaar inuu iga qaldayo laakiin ilahay qatraac nagama dhigo annagana haddii oo meel oo marnaba aan la godi karin oo kuu godo amba meelaan mar la kordhigi karin oo kuu kordhiga inaa haddaad fahamto waxaa waaye carabkaaga waa dafi kariyaa lakin isla markii inaa bedashid waay oo tira saan ma ahayna iska fiirasaan waayo wuxuu yihi wa acdama waa quudiyey nabiyullaahi maxamed alfan kun ayuu quudiyey kunkaasoo min unaasin dadka kamida dabiibuna aa quudiyo dhakhtarkeena faacilku dib u dhigta ilan
wacdama waa quudiyey dabiibuna anaka dhakhtarkayna 1000 kun oo quudiyo kunkaasoo minunaas dad ka mida wuxuu ku quudiye waxaasoo dhan uu sheegi rabaa marka wuxuu yidhi bilaxmi canaaqin waxar yar oo qoor dheer oo dhaylo ah hilibkeed ayuu ku quudiyey qul dheh wa asqaa waa waraabiye dhahow dheh oo yacni waa kala gaarsiiyey kulligood qof maalinkaas la qadiyey ayaa iska yarba xasiibuna anaka sharaf badanahayni ayaa waraabiye dheh maxaa yeelay xadiidkii jaabir waata waxar yar inta la qalay nabiga calayhi salaatu wasalaam loo yeeri wa ashbaca jayshan ma'iinin kada bimuddin shaciirin kamaa nuqila markii leeyahay way isla socdeen waxar yariisa iyo hal madaaloo badara aa la sameeyey asi wuxuu tiri madaalkan cajiin ayaa muufeynaya yowmulkhandaq nabigu waa baahan yahay calayhi salatu wasalaam nabigay afarta ugu daran soo qabay tiri xaaskii oo u qabay jaabir asaa wacdara ka dhacday nabigu hoos ugu sheegay asuu 300 qofood oo khandaq godka qodii soo baahnay soo baxo way ase waxay aad jidka la soo daba joogo asi tiri xay ceebay salaa ku ceebay oo inta ugu yeerta asuu yirmay nabiga aniga asluub aan ugu sheegay hoos waxaan asaa wato dhaana wuxuu yiri waxaan dadka meesha ma ka hadli karin dadkan jooji ma dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay ogyahay mugta inay yaabayaan wuxuu yiri digsiga marka oo waxarta ay sheegta lagu kariyay daboolkiiga qaad nabiga calayhi salaatu wasalaam fartii sharafta badan loo geliyay ayuu dabka saaran tahay wuxuu dhahay dabkiina laga dejin hala guro bis gabdhihii wuxuu yiri gabadhiina wuxuu yiri muufadan kaligaa ma dubi kartid wixii gabdho kuu dhawaco cajiinka oo farta gelisay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay idan tinaarka ha lagu wado yaan la kala joojin hala soo guro dadka dhan ta dhargeynay gacanta taageen tisnu wuxuu waayeen waa dhargeyn waaye بيهقي كفيرني سوا دلائل النبوة وحوري بلحم عناق وحر أوردير أوردير هواي عناق أساس لكذا هيلب كيد أيو حوك درجيو يكون تطبانو سيو كذا قل حتى واسقى وورابي حسيبنا أنا كشرف بدنهيني 300 سدح بقول بدر عنزين ري عنهد أو عنزين محوك هذا ما أنت عنزي وحر عنهد وحرب وايد oo inta waxaar orto waxa ka horeysa inay inta irmaanaato cunug ay dhasho ka horeysa maba irmaanaan cunug waa waxarba ayda lafteeda miskiina oo orgi xaba aan dhahmin waxarta inta aan yeelata 300 laga dharjiyo kuule marka 300 ayaa bidari wuxuu ka wasqa wuu waraabiyay xasiibuna meesha la socota xasiibuna anaka sharaf badanahayni 300 ayuu wuxuu ku waraabiyay bidari anzin waxar aan wali dhalin caanaheed ayuu ka waraabiyay ka dharjiyo نصيبنا هو نصيبنا نحن أنا نصيب كان ويولا ها نبي جالس أنا كنبي جينا رسول الله براوي محور مركز زيلاء وقد أشبع نبي رجيي عليه الصلاة والسلام الجيش أيضا الكثير فربضن حبيبنا حبيب كان رجور وقد أشبع حبيبنا حبيب كفاعلة حبيب كينا محبوب كينا ومتك أنا جعلنا دي لذا نبي الله محمد ما قاعد يسكله ألا وأنا حبيب الله يوري قف قارت الجعلة وإذا أباها حبابته دوا حبيب كاجوا أباها وإذا حبيبته دوا وحرت ده لكن هدي حبيب كان الله قف كذوب إيمان ليه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وقد أشبع حبيبنا أنا كحبيب كان وحو درجي الجيش أيضا الكثير إفر بدن أيو درجي معكو درجي بمد شعير هل مذال أو بدرة أيو كدرجيوري صح ذاك أرنكاسنا وأنصحي كما وعي سيد الحفظية أرنكاسي وأنصحي صحيح البخاري وقتك تسوي الشيخ كما وعي ساسك وضع وإيه كما وعي سيد الحفظية هل كاسا أدونه هيسا يا بخاري مركز كوريرنو كلية وحانرن يوم الخندق وحد عيوة به وقل يا وحول يا به قد سمت أرض الحجاز وتومها وما أرضعت قد تساعد رومها ولولاه ما كانت قثاء وفومها حليمة بالإرضاع فازت وقومها سموا بنبي بتهاجد مولاي وايهاي وحوير به نبي الله محمد سببتيسا قد سمت وحا شرفوا مي أرض حجاز أرض الحجاز لك سعودية عربية مكية مدينة انتو كوير أرسن أرض الحجاز اللي اسكو يرادو أيها شرف يا شيء ده وطومها متانه هذا مالها أودا دودن
sharafay yeesheen u dhah waman qofkii ardacathu nebiga nuujiyene qad tasaacadda qofkaasi waxaa caawiyey rawmuhaa ayada dantii ay laheyd wax walbay laheeday gaartay sayida xaliima sacdiya nebigu agoonna markay qaadatay isla markii dameerkeedii xooguu yeeshay roobaa ka da-ay reer bani sacatuuladii ay deganaayeen dameerkii waa cayiilay xaliima sacdiya waa cayishay barwaaq soorna gashamaano qad tasaacadda waxaa caawiyey rawmuhaa danteedii danta adiga aada leed saa kuli leed danta hadii ku adeegta kor danta ku caawiso wax yaab la waa tacbiirku ka bixinayo baraawi wuxuu yidhi waxaa caawiyo dha danteedii waa yahay waa u kaalmaysa waay ilaahayba kuma dhibaayo danteeda maano walowlaahu nebiga hadduusan jiri lahayn maa kaanad ma u ahaateenba murdacadii ma hesheenba qithaaun qijaar xataa ma hesheen ilaa meel abaaray ka timid ma hesheen qijaar ma heli lahayn dhah wafuumuhaa ayada digirteedana ma heli lahayn geedan maaragtay cadaska iyo udhaxayso iyo digirta kale oo salbukada la leeyahay baashisaa fuumka ladhaa marka digir waayda kori hoos waaya salbuko oo digir ah xataa ma heli lahayn u dhahay digirna ma hesheen qijaarna ma hesheen roobba ma imaa lahayn maano waa xaalka waxuma abaara jirta markaas waaya see wax u dhaceen inuu sayida xaliimatu sacdiya saddexdan misraac oo ku sarbeebayay waman le iska yiriye waxaa sheegaya zayne wuxuu yihi xaliimatu sacdiya faazad way liibaantay oo dha xaliima sacdiya liibaantay wa qowmuhaa ayada qoomkeedina way liibaaneen bilirdaaci nuujinta nebiga reer bani sacad o dhamaan roob ka da ummadda dhan barwaaq soornay galeen liibaana ka dhacdo dha meesha xaliimatun asayida xaliimatu sacdiya waay faazad way liibaantay wa qowmuhaa ayada qoomkeedana xaliima sacdiya way liibaaneen bilirdaaci nebiga nuujintiisa ayay ku liibaaneen samow waxaa sharafoomay oo sara maray binabiyin nabiyullaahi maxamed sababtiis waxaa ku sharaf maray nebigaasoo muulacin la jeclaysiiyey bitahajudi salaatuleilka samow way ku sara mareen qoomkeedii ayada binabiyin ay ku sara mareen nebigaasoo muulacin loo mamangeliyey oo la jeclaysiiyey bitahajudi salaatuleilka la jeclaysiiyey waaya halkaas ku sin beedkaasi beedka kala gala marka intaan waqti yaraan haysanaa bihi sharafa allaahu lmuhayminu xalana wazaada jalaalan bilhudaa wa jamaalana walamaa ataana qad azaaxa wabaalana abadrun bada am wajhu leyla adaalana faamsat layaali lkowni daata tashacshuci aynidiisi macanta waxaan ka baqaadilame in biis la dhaho dadka waa qayli jireen mugta wax markay u bagaan laakiin youtube-ka la geliya hadduu ilaa yihahdo biis qofkii dhahda youtube-ka loo dira insha allahu tacaala youtube-kana wuxuu ku jira hadda intii aan akrinay ahlu sunna qaadiriya meesha laga raadi karaa marrab wuxuu dhaha markaas bihi nabiga sababtiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu sharafa allaahu alla oo u sharafay waayahay allahaasoo almuhayminu ee markhaatiga ka ah wax walba ilahi wuxuu moogyaha ma jirta waay ashaahid calaa maa yufcal macnaheed saas waa muhaymin allaha markhaatiga ka ah wixii la samaynayo ilahi in loo sheego un baahno marka xaalkeyna ilahi yaa u ogaal badan qofna wuxuu dhaha bihi nabiga sababtiisa oo sharafa allahu ilaahay wuxuu ku sharafay allahaasoo almuhaymin allahaasoo shaahidka ka ah axwaasheena yacni markhaatigaa ka macnayn kartaa allahaasoo markhaati ka ah wax walbo adduunka dhacay og oo shaahida xaalanaa annaka xaalkeena ayuu sharfa u dhahay nabiga sababtiisa lagu sharfay wazaada markaasaa waxaa ziyaaday uu yidhi jalaalan heybad iyo wajamaalan qurux bilhudaa hanuunka sababtiisa ilan maal qaadala may marka wuxuu dhaha heybad iyo waxaan helnoo dha iyo qurux hanuun aan ku helnay u dhah walamaa ataana markii nabigu uu noo yimid calayhi salaatu wasalaam qad azaaxa waxaa naga sikadoo dhahay wabaalana anaka dhibaatadii iyo masiibadii waa naga sikadeen ilan dhibaato ka weyn male gaalnimada masiibo ka weyn male gaalnimada waxaas waa naga sikadeen nabiga aduu yimid walamaa ataana markuu noo yimid qad azaaxa waxaa sikaday uu dhahay waa yahay oo durugsamay waa la sikintii ka wadaa markaas marxaban walamaa ataana markuu noo yimidni qad azaaxa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sikiyey wabaalana anaka musiibadeena gaalnimo asdeynay o dhah abadrun dayax 14 miya day zile wax u dhigi raba marka
carabta xataa tacbiirkaa ma samey karaan badigood abadrun dayaxa 12aada miya badaa muuqday am wajhu leyla gabadhii liila la dhaho wejigeeda wuxuu yihi miyaa muuqday u dheh oo adaa lana anaka noo ife adaa waayo yacni gabaygo sheekh wuxuu ka sameeyey baxru dawiil fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun oo masraca fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun gabaygaasa waxaa loo yaqaana qeybtaas baxr baxru dawiil kaasuu ku sameeyey sheekha marka adaa lanaa haddii hadda la dhaho qayb qaabkii loo sameeyey baxru dawiilkii ayaa waxaa gelayo qajajac ma la rabo marka inuu cilad gasho sheekh laashin u ahay marka wuxuu yihi abadrun dayax 12aada miyaa badaa muuqday ama wajhu leyla gabadha leyla la dhaho ul waxaan soo dhahna leyla iyo sucaad iyo maymuuna iyo waxaas iyo gabdhaha caanka ahay ee carabta ku gabyi jireen halheesi ka dhiga jireen markay rabaan wax inay ka kinayoodaan gabdhahaasi aadi jireen markay rabaan wax inay ku furfurtaan ee baraacatul istilaal sameeyaan gabdhahaasi aadi jireen qaabkaas u hadla marka abadrun dayax 12aada miya badaa muuqday quruxdiis amase wajhu leyla leyla wejigeeda ayaa adaa lana anaka noo ife may nabiga waa calayhi salatu wasalam quruxdiisa nabiga ife kooda fa amsad waxay naqatay waaya fa amsad waxay naqatay layaalul kowni koonka habeenadiisa daata tashacshucin mid birbiriqa u saaxiiba nabiga calayhi salatu wasalam markii la adduunka maxaa ka dhacay adduunka dhan isla iftiin isla birqi ha ardu sham iftiin ka dhacay arkay tiri sayida aamina waaya iyo gabdhihii umulsooyinka ka marqaati kaceen fa amsad waxay naqatay u dhahay layaalul kowni koonka habeenadiisa daata tashacshucin mid birbiriq u saaxiiba ayay naqatay u dhahay iftiinka isku darsamay waaya fain lam ara almukhtaara waduula xasratii famin ayna lii wadanbu daabi waduratii walaakin rajaa'ii fiihi acdamu nusratii laqad daaca cumrii maa dafirtu binadratii fayaa muhjatii duubi asan waa taqaduci oo ku raaxaysan qasiidadan ilaah qabuul siiyey wuxuu yihi falam ara almukhtaara haddii nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam aanan arag yaa dhahayo imaamku weynaa dhahay sheekh qaasim baraawi waduula xasratii alla shalaateeda fara badana oo dhir badana waduula xasratii waa xasrataahna waa dhan carabta laakiin gabaygaa uu tuusi rabaa soo yiri waduula xasratii alla shalaateeda dhir badana oo daniga adaan arkin ha waa inaad ka shalaysid waa nabiga dad arkin waay fa min ayna li intuu nabiga igaga sugnaha u dhahay wal xaal adambu dembigaba da'bi aniga arrinkayga uu yahay dembigaba aniga wuxuu dabeecaddiida waa warsan yeelaha u dhahay waaya waduratii jawharteedana uu yahay jawharta aan ku faanayo iyo keedka aan meel dhiganayo waaba dembi u dha aniga sideeda dembiga ka dhargay u dhah waa tawaaduciya sheekh qaasim baraawi kaana caaliman caabidan waa taqiyan weli ilahay u ahay waaya walaakin rajaa'ii aniga rajada aan leeyahay fiihi nebiga dhexdiisa aan ka leeyahay ayaa acdamu nusratii aniga gargaarkayga ugu weyn u dhah an rajalaan maahi yiri horta rajo fiican nabiga ka qaba alayhi salatu wasalam arko walaakin rajaai aniga rajadeeda fiihi nabiga aan ka qabo aragtidiisa inaan nabiga aan arko acdamu nusratii gargaarkayga mid ugu weyn taasaan bu ku qanacsanahay maahane wuxuu yihi qaracnaan la dhima lahay muxuu yihi marka imaamka weynaa zeylaci laqad daaca cumrii aniga cimrigeygi waxaa ka degay maa inay tawaaduc yihiin sayidi shee cabdiraxmaan azeylaci raxmat ullahi caleyh asoo ah nin shaaba oo dhalinyaro ah oo muqdisho yimid waxaa markaas aykan dhalinyaro ahay oo cilmiga baranaya caalimiin ahaayeen sayidi shee cabdiraxmaan suufi iyo sheekh axmed xaaji raxmatullahi caleyhim kulligood alla u naxariisteen marka maalin maalmaha kamida ayaa waxaa cajab la naqatay salawaadka waxaa lagu akri jiray mawlac ou sameeyey sheekh cabdiraxmaan suufi sheekh cabdiraxmaan zeylaci shanigiisa oo la yaab sheekh axmed xaaji asu wuxuu yiri bal io waran qisada sida lagu soo wariyey sheekh cabdiraxmaan zeylaciyow nabiyullaahi moxamed iyo adiga contactiga aa leedihin bal iga waran u dhah muxuu dhaha marka zeylaci wuxuu yiri xalay aan waxaa arkay u dhahay markii 45 xalan arkay u dhahay markuu saas dhahayni
يعني محبدي iyo jadbadii anta ka tambadisay oo sheekha suuxayba Zaylaci markuu suuxay Sheekh Axmed Xaaji asna waa jadbooday wuu ximbaartaba sheekhi gurigiisa uu geystay sheekhu suuxsan xoolo u qalay Sheekh Abdurrahmaan Zaylaci haduu soo naaxay xoolaha qalan ziyaara la qabaabo nabiga loo dabaal degaa ilaa xalal la arkay alayhi salaam ahlullahi ma sii joogeen dad sheekh maxaa dhacay xoolahan maxay tahay markaas uu adiga 45 jeer nabiga ma arkin alayhi salaam ha xal ma ugu dambeynino ha intaas da xoolo qal weyn maxaan xoolo qalan oo Sheekh Xaaji marka Zaylaci asoo shaab muxuu yiri xalan arkay markii 45 dhigeyso wuxuu leeyahay in culimada dhan tawaaduc ku hadlayaan laqad daa umri waxa dayacmay oo aniga umrigeyga qasaaran galay oo hay ma dhafirtu bi nadrati aniga kuma guuleysan dhafiiradii nabiga arko ma dhafirtu dhafira wa fi'l maadi wa hadana laazima laakiin waxa loo gudbiyaa ba وانا الليبان يهرمر ما ظفرت أنا كم الليبان نوراي كم جولسن وهذا سيدي شعب الرحمن علي بحر وافر كلها محمد رسول الله محمد ظافر بوجوب 5 ظافر استعماله اسم فاعله هذا أنا بوجوب وسين بعض يوجد بي الشيخ عندي محوليه ظفرت بنظرتي ساسي هؤلاء يقونتوا أدي أسري سوا أهل السنة والجماعة نصيب كاس هي 60 كاس أي مدى سلسلة ضوء ما هي تقانا وهابية بدعو وأدلي وحور لقد ضاع عمري أي عمري وقت ما ظفرت أنا كم أنا جوليسن بنظرتي أركتي نبي أنا أركم جوليس يعني وحور ربا نبي أفرت أنا شنجر أنا يركو أركم كلية يعني أنت هبين وجرب إنه هبين كست أركو جيران هذه ما هبين جرت سنة كاو بدن سنة كذا أفرت جرت كسوقه ما قبل جرت يا حسابك هذا بش هالمر نبي أرت ما غني غني وحلالي يا بين غني هذا مال أنت أرتين وحلالي يا بين غني مرك وحوري يعني وياك ويرتاي واي ما ظفرت إنه كفى فانا مربيو ما ظفرت أنا وحوري ما بقول لسان بنثرتي أركتي نبي أركاي ما بقول لسان ولا فيا مهجتي أنا روحي يجي روح النفس يا مهجة الله فيا مهجتي أنا روح دي ذوبي دلال أصلا مروج دلال كاس وحلا وضع يعني برف كسول دلال عمل دلال أصلا مروج دلال أو التقضعي جو أديكدن ما حقبني نبي قد أركويس إسكا مرجو أو إسكا جو إسكا ديمو أم بنبي أرك ساسولي وإمام كويناي زيلاي لقد ضاع عمري ما ظفرت بنظرتي فيا مهجتي ذوبي أسن وتغضعي لقد ضاع وحد مي أو ضيع مي عمري أنا عمري يزمن كي كده وارد مي يوده ما ظفرتكم أنا جوليسن بنثرتي أركتيكم أنا جوليسن فيا مهجتي أنا الروح دي دوبي دلال واحد وحو الروح دي ذوبي دلال إلا الروح دي ومؤنث ذوبي ولا سيدا قولي عمل لليه قبر ده عمل خافي لليه مكو ذوبي أو ده شيء عجيب وهي ذوبي دلال أو ده أصلا عصا إنه قرأ دعك كتاب هذا قار مركب ما سعنيس أصلا مرجو يوحوري وتغضوا عقاقو وهي وقت أنا قد مرة بيت كانوا كسوقتي منها أيا شافع العصاة مثلي والرافعا بكرفع يساري ثم كن لي نافعا وعونا وعني شر حساد دافعا ألا يا بهي الوجه كن لي شافعا حفيظا عن الأمر الذي هو مفضعي وحولي هي أيا شافع العصاة dadka dambiilayaasha ee caasiyaasha kan u shafiicayo nabiyullaahi maxamed shafaacatul udma la siila shak shariifun wa shafi'un la shaka yawma wa'dihi wala shaw sadar rahmatullahi alayhi ayaa shafi'al usati dadka dambiilayaasha kan u shafiicayo mithli aniga kuwa ilamida kan u shafiicayo waraafican kan iga sareeyo kan u shafiicayo أيه بك أديك الصواب هذا ارفع كر وقاضو ده يساري أني هذا تنمي ذكر وقاضو له
hodantanimadeeda aan rabaa u dha iyo barwaaqadeeda inaa horta wuxuu yidhi kor qaado yidhi uma markaas kabacdin kulli aniga i ahaaw dhah ilaan ma hodminba qof aakhire la cadaabay yaan la cadaabin oo ka wadaa irfac kor u qaad yasaari ani hodantinimadeeda maalintaas i badbaadi uma markaas kabacdi kulli aniga i ahaaw naafican mid i anfacay ahaaw nabiyullaahi maxamedow wacownan kaalma i ahaaw liya markaas wadaafican mid iga difaaco canii aniga xaggayga shara xusaadin xaasidiin jartood mid iga difaacan ahaaw alaa hooy yaa bahiya lwajhi midka wejiga qurxoonaayo nabiyullah maxamed wuxuu yidhi maa bacatha allaahu nabiyan ilaa xasana alwajhi wa xasana sawti wa ina nabiyakum axsanuhum wajhan wa axsanuhum sawtan rawaahu tirmidiyu laa shaka nabiyullaahi maxamed intuu ilaah abuurnay maxmed u qurux badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay nabhaani waa soo qaadan yuusuf alxusni ucdiya nisf wa bidaka nisfi iftitana nisaau wuxuu yidhi yuusuf alxusni ucdiya nisfa yuusufkii quruxda badnaay waxaa la siiro haaf wa bidaka nisfi haafkaasni iftatana nisaa gabdhiha ku fidmo laakiin nabiyullaahi maxamed jalaalada ilaahay siiyey iyo jamaalkiisa waa la isku daboolay kadib uu kasii sheekeyna uu le qeybba qeybay dabooshay daa lihaada wadaa lihaada waa soo qaadanay nabhani waayahay wuxuu yidhi kulli youtube-kaa la geliyay waa kala soco kartiin alaa hooy yaa bahiya alwajhi kii wejiga quruxsanaayow kulli aniga ii ahaaw dhahay shaafican mid ii shafiicayo aniga ii ahaaw xafiidan mid i xifdinaayo ii ahaawo can ilamri ani arin i xifdinaayo arrinkaan iga xifdinaayo alladii arrinkaasoo huwa arrinkuba mufdici aniga i ceebeynaayo arrinkaa aniga i xumeynaayo wuxuu dhaha aniga igu reed dhigoodha iga leexi alaa hooy yaa bahiya alwajhi alaa yaa bahiya alwajhi kun lii shaafican xafiidan can ilamri aladii huwa mufdici alaa hooy yaa bahiya alwajhi kii wejigiisa quruxda badnaayo kun li ii ahaw shaafican mid ii shafiica ii ahaw nabi maxamed alayhi salatu wasalaam yaa bahiya alwajhi haddii la xataa nabi maxamed lew alayhi salatu wasalaam ilaa dadka saa u qurux badan xafiidan mid iga xifdinaya naqo can amri arrinkan alladii arrinkaasu huwa asiga mufdiciya an ii ceebaya banka qiyaama haddii la tago ilah ceebtooda astur waay nebiga sababtiisan ku astur shafaacada inaa helaan rabaa wain asabtu famin allahi wain akhdatu famin annafsi washaydaan wa ila liqa asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu